Uma station wuxuu naga caawinayaa cimilada si aan ula socon lahayn wuxuu ka kooban yahay saad arkaysaan 3 computer amba serverkani waa kii daatada ka soo qaadayay satellite-ka marka inta badan waxa loo isticmaalaa lagu ogaadaa inta channel marka ku shaqeynaysa data acquisition kana waa kii process gareynay saad aragtaan waa BC1 BC2 BC3 BC1 inuu shaqeynayo waxa ku garanaya marka uu shaqeynayo waa green BC2 na markuu shaqeynayo labadaas waa inay green noqdaan BC3 una labada hoos waa inay green noqdaan marka BC1 kani waxa weeyaan daatadu ka soo qaaday satellite-kii dishkii marka wuxuu u gudbinayaa computer BC2 oo inta badan isagu shaqadiisu tahay processor inuu image-kii halkan ka helay channel-adii oo dhan uu bedelo si computer-ka saddexaad uu bedeli karo marka waa processing kana waa visualization-kii waxa loo xidhaataa maanta human site baanu yaan ka helay human site-kii marka midna waa kala midna waa channel-adu farabadan yihiin IR oo infrared-kii iyo visible channels-kii iyo color-kii marka waxa arkaysaa maadaama aan ku jirno bishii October in systemka weather-ku oo inta badan xoogiisu roob ka da'ayaan Afrika koonfurta iyo badantay markaan doonayna inuu ogaano Somaliland oo kale waan ogaan kareynaa maanta markaan maantahan oo kale saacad markay ahayd 9:15 waxaan arkaynaa satellite ku xilsiinaya image in aan roob ka fili karno hawdka Somaliland marka tan waxay noo cadeynaysaa inaynu la socon karno hawadu say tahay ma cloudska winka oo dabayshiya cadaadiska hawada oo kale xaraarada oo kale wax walba aynu la socon karayna marka waxa strategic plan-ka hadii kaba soo qaad abaar soo socdaan oo kale season-ka dambe guga waynu waan karayna waan ku saadaalin karayna noo isticmaalayna forecasting workstation-ka oo aad inooga caawinaya inaynu qorshayaasha nolosha ku saabsan inaynu wax badan ka bedelo oo aynu si sheegno in advance 2 bilood ka hor 3 bilood ka hor sanad ka hor waan saadaalin karnaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaad ka arkaysaan mashruuca MESA oo mashruuc runtii wadamada Afrika oo dhan ay ku bahoobeen oo sidii loola socon lahaa cimilada Somaliland loola socon lahayn mashruucaasna waxa runtii naga gargaaray oo gacan xoog naga siiyay ururka IGAD oo laantii aynu mashruucaas midho dhaleen si kala hadaan u dhigo waxaan gaarnay maanta awood Somaliland inay kaligeed garan karto cimiladeeda ay la socon karto hawadeeda ay maamuli karto waa gulway ilaahay baa lagu mahadiyaa injineerkan Master John oo ka socda IGAD iyo Cabdirashiid Ikawa iyo iyaguna gacan xoog naga siiyay aadna ugu mahadsan yihiin runtii waan ugu mahadnaqaynaa. Good morning ladies and gentlemen. I would like to take this opportunity to first and foremost thank the government of Somaliland for having been able to invite me to be able to be part of this important occasion, to be part of the system of installing this UMEDcast system that is used for weather forecasting. The system is a PUMA system and it is based on satellite observations from the UMEDSAT satellites. So what we do get from the system is that we get many meteorological weather products that are used for weather forecasting in this nation. And I do believe, inshallah,
with proper usage of this system, Somaliland is going to be well represented, and the focus are going to be more improved in terms of improving the livelihood of the people of Somaliland. So thank you so much. I also want to thank the IGAD Secretariat for having facilitated me to be able to come here, and the Minister who personally took it upon himself to make sure that I was here and well taken care of in this beautiful country of ours. Thank you so much. إلهي بارتو مهدله هو قول وينو سوماليلاند runtii u soo hoyatay inaynu maanta halkan ku guuleysano inaynu rakibno boom station oo inaynu la soconno dhammaan hawadeena saadaasha hawada iyo wixii la halmaalo oo inaad ugu baahnayn waynu ognahay duruufaha abaareed iyo wadci ee cimilo eena soo maray waxa aanu dadaal badan u galay ka wasaarad ahaan inaanu suurto galino sifo kastoonu ku heli kareyno qalab satellite-ka ku xidhan oo suurto geliya inaanu sida caalamka la soconno hawadeena oo aynu ka caawin karno dadka reer guuraaga iyo dadka magaalooyinka iyo dhulka daaqsimeedka iyo wax walba si loola socdo iyo masiibooyinka ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga qadarka leh la sii saadaalin karo inta awoodda bini'aadamku gaarsiisan tahay barnaamijkan wuxuu inoo suurto gelinayaa hawshaasi inay inaga caawiso inaanu xog ka helo oo satellite-ku inoo sahlo waxaan u mahad celinayaa runtii urur goboleedka IGAD oo qalabkan qiimo weyn ku kacay inoo keenay runtii waxa kale oo mahad celinayaa John Say engineerka oo isaguna isku rakibaada u yimi halkan iyo oo ka socda IGAD iyo Cabdirashiid oo ay kaawo ka socda qaybta meteorology ee saadaasha hawada oo labadooduba runtii gacan ballaaran ka geystay sidii ay u suurtageliyeen maantana qalabkii waa shaqeynaya oo tijaabadii hore waa sameynay biidin Ilaahi tacaala mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa inay noqoto ama hay'ad madax banaan ama wakaalad wasaaradda lafteeda hoos timaada maadaama ay ahmiyad gaar ah leedahay laakiin waa talaabo hore loo qaaday maan leeyahay waana talaabo ay ku guuleysatay xukuumadda imika ee xisbiga kulmiye runtii kaliya kama caawinayso qura duruufaha cimilo iyo abaareed waxay ka caawinaysaa kale masal haddii badahoo kale wax ku soo fooleeyihiin duufaano hadday jiraan masiibooyin kale roobab meelaha qaarkood siyaado oo daaya oo dadka wax yeeli kara in dadka xog la siiyo waxa kale oo kamid ah in meelaha abaar looga baqayo lafteeda ay xog laga helo oo information ka la helo xogta la helo oo dadka marka meelaha degan iyagana la siin karo xog ah in dhulkaas imika abaartu ay ku badan tahay xagga kale u baahan tahay in loo guuro waxa kale oo laga siin karaa magaalooyinka dhismayaasha in la socdo habka dabayshu u dhacdo oo lagu saleyn karo ama qaab dhismeedka guriga loo dhisayo iyo dhinaca dabayshu ka soo dhacayso iyo khatarta guriga ku iman karta laftiisu haduu yahay dabaqyo badan oo soo saaran xog badan oo dalkani u baahnaa oo marka hore uu ka ulaa ayuu inoo suurto galay barnaamijkani waana markii ugu horeysay Somaliland lagu rakibo dhulbeereedka xilliga dhulbeereedka kale wax badan uu ka caawinaya marka waxa kale oo iyadana runtii aan ogahay inuu ka caawinayo TV-yada inay helaan xogta dhabta ah ee saadaasha hawada ee Somaliland taana runtii barnaamij baan u sameynaa aanu heshiis ku wada galno wasaaradda warfaafinta oo aanu xogta dabayna anagu TV-yada madaxa banaanba ay helaan si toos ah inay u heli karaan xogta maalin kasta iyo daqiiqad kasta ee hawada Somaliland sida u dhacayso iyo duruufaha roob cimilo iyo dabayleed ee ka jirta waxaan aad ugu mahad celinayaa mar labaad urur goboleedka IGAD insha Allah taala hawshanna si rasmi ah waxay ka mid noqon doontaa qaybo badan oo soo kordhinay wasaaradda ahaan oo madaxweynuhu hadii fursad noo saamay xariga ka jari doono insha Allah waqtiga ugu dhow ee ugu suurtagalsan aad baa mahadsantihiin so what time you traveling tomorrow I'll be leaving at 8 in the morning. Yes. I have your email and we will keep in touch for the training and capacity building because of that is very important for us as well. It is true. Yeah. I think I don't know where